السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داوديال meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeeni wax ka baro waayaha nolosha oo aad toddobaadkiiba hal mar ka daawataan shabakada caalamiga ee Hohad News barnaamijka waxa idin socodsiinaya anigoo ah Maxamed Saciid Cali Maxamed Turki xubnaha barnaamijkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa ay noqonayaan sida tan dhiirigelinta dhalinyaradu waa arin laga maarmaana xubinta labaad ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa ay noqonaysaa sidee baa loo jihayn karaa nolosha iyo mustaqbalka dhalinyarada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenu intuu socdo daawadayaal barnaamijkana waa barnaamijkeeni wax ka baro waayaha nolosha haddii aan soo qaado xubinta ugu horeysa ee barnaamijkeena dhalinyaradu waa awoodda iyo cududda uu dal kasta ay leeyahay isla markaasina uu ku faano dhalinyaradu waxa ay ka mid yihiin dhalinyaradu waa ubaxa dalka isla markaasina waa madaxdii iyo mas'uuliyiintii berito waxaanay u baahan yihiin in mustaqbalkooda la jiheeyo isla markaasina noloshooda la meeleeyo isla markaasina ay cid waliba xil iska saarto sidii ay u noqon lahaayeen dad dalkooda iyo dadkooda horumariya sidoo kale dhalinyaradu waa dadka dalka u hadhaya haddii ay helaan waxbarasho iyo manhaj tayaysan waxa ay noqonayaan kuwa ka qayb qaata horumarka dalkooda isla markaasina waxa ay noqonayaan kuwa aan markaasi aan hakranin bulshadooda kana taliya aayaha wadankooda sidoo kale waxa loo baahan yahay in dhalinyarada la kobciyo maskaxdooda iyo waliba in markaasi la kobciyo aqoontooda iyo garaadkooda si ay u noqdaan dad markaasi horumariya dalkooda haddii ay dhalinyaradu hagaagto waxa ay ka dhigan tahay inay bulshadii oo dhan ay hagaagtay haddii dhalinyaradu ay xumaatona waxa ay ka dhigan tahay inay bulshadii oo dhan xumaatay haddaba waxa loo baahan yahay in dawlad iyo shacab iyo culamaa u diinba loo guntado sidii loo horumarin lahaa isla markaasina loo hagaajin lahaa tubta toosanna loogu hagi lahaa da'yarta sidoo kale qofka dhalinyarada ahi waxa muhiim ah inuu yeesho go'aan qaadasho iyo hal adayg raganimo taasi oo ka caawinaysa inuu markaasi uu dhabar adaygo caqabadaha kaga imanaya nolosha iyo inuu waajaho noloshiisa waxaanay taasi ay ka caawinaysaa inuu noqdo qof aan isku dhiibin nolosha sidoo kale qofka dhalinyarada ah waxa muhiim ah inuu ku sifaysnaado mutadaawacnimo iyo waliba inuu ku sifaysnaado naxariis iyo inuu markaasi uu ka fikiro sidii uu caawin lahaa dadka nugul iyo waliba dadka daada iyo dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay isla markaasina haddii uu taas sameeyo waxa uu noqonayaa qof markaasi bulshadiisa dhexdeeda magac iyo maamuus ku leh isla markaasina waxa uu noqonayaa qof la tixgeliyo oo markaasi bulshadiisa kula sharaf aan markaasi aan dhammaanaynin sidoo kale waxa muhiim ah in la dhiirigeliyo dhalinyarada la timaada fikrado iyo maskax cusub iyo waliba kuwa markaasi la yimaada ikhtiraacad farsamo iyo kuwa la yimaada iyo waliba da'yarta hal abuurka haddii markaasi la dhiirigeliyo waxa ay taasi u horseedaysaa inay noqdaan kuwa markaasi dalkooda horumariya isla markaasina waxa ay taasi ay ku beeraysaa inay markaasi ay la yimaadaan fikrado ay ku horumarinayaan dalkooda iyo waliba dadkooda taasina waxa ay markaasi u saamaxaysaa in ay dareemaan in bulshadoodu ay garab taagan tahay waa tahay daawadayaal haddii aynu xubintaasi ka waramaysa dhiirigelinta dhalinyarada aynu intaasi kaga soo noqono waxaan filayaa inaad si fiican aad ula dhacdeen xubintaasi iyo waliba murtida ay xambaarsan tahay aan soo qaato xubinta labaad ee barnaamijkeena sida ugu habboon ee loo horumarin karo dhalinyarada iyo da'yarta dalkeena ayaa waxa ay ka mid tahay waa in marka ugu horeysa loo sameeyo dhalinyarada fursado shaqo abuur iyo waliba in markaasi la furo goobo lagu barto farsamada gacanta taasi oo ka caawinaysa inay dhalinyaradu ay helaan shaqo abuur isla markaasina ay aaminaan dhulkooda oo aanay ka taariibin taasina waxa ay dhalinyarada ka caawinaysaa inay noqdaan kuwa markaasi dalkooda u soo jeeda sidoo kale waxa muhiim ah in markaasi dhalinyarada loo sameeyo marka ay ka baxaan waxbarashada
fursado shaqo abuur iyadoo qof kastaba lagu tixgelinayo oo markaasi lagu qaadanayo aqoontiisa iyo weliba kartidiisa markaasi waxbarasho isla markaasina waxa ay taasi ay dhiirigelinaysaa inay dhalinyaradu ay noqdaan kuwo markaasi heegan u aqoonta iyo cilmiga sidoo kale waxaa muhiim ah in dhalinyarada lagu ababiyo qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay wadaniyadu isla markaasina in la baro in ay noqdaan kuwo iskood wax u qabsada isla markaasina horumariya dalkooda taasina waxa ay ka caawinaysaa in ay markaasi noqdaan dhalinyaro hal abuur leh isla markaasina noqda kuwo markaasi dadkooda iyo dalkoodaba horumariya sidoo kale waxaa muhiim ah in dowladda lagu dhiirigeliyo mashaariicda iyo weliba horumarinta dalka isla markaasina lagu dhiirigeliyo laguna taageero sida ay dadaalka ugu jirto in dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo abuur tusaale ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi go'aankii ku dayashada mudnaa isla markaasina ku dhac lahaa ee uu qaatay ee ahaa mashruuci shaqo qaran waxa uu ahaa mashruuc markaasi lagu jihaynayay dhalinyarada isla markaasina waxa uu noqday mashruuc markaasi ay mahadiyeen guud ahaan shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana loo baahan yahay in halkaasi laga sii wado isla markaasina sanad kastaba la sameeyo mashruucaasi shaqo qaran kaasi oo dhalinyarada u horseedaya inay difaacaan dalkooda marka lagu daro ay ka mid noqdaan ciidamada isla markaasina waxa ay taasi u horseedaysaa inay helaan quwad nafsaaniya iyo weliba markaasi macnawiyaad aad u badan sidoo kale waxaa loo baahan yahay in markaasi ay dowladdu ay aad u ilaaliso dhalinyarada isla markaasina ay ka fekerto noloshooda iyo mustaqbalkooda sidii loo maareyn lahaa arrintaasina waxa ay noqonaysaa mid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u gasha taariikhda isla markaasina baal dahab ka geli doonta taariikhda waa tahay daawadayaal haddii aynu xubintaasi intaasi kaga soo noqono ka waramaysay dhiirigelinta dhalinyarada aynu soo qaadano mid ka mid ah suugaanta amaba seetix maansa oo uu markaasi uu inoogu luuqeynayo abwaan Khaliif Faarax Xayir ee daawasho habboon dharaarba warbay sidaa dhambaal weeyaan wakhtigu rajadu guushay dhashaa caqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaan dhanka wacan ka dayo dhaliishu waxbay saxdaa erayna waxa loo dhigtaa dhankiisa wanaagga leh haddaad tahay ruux dhibsada wuxuu dhahay ruuxa dhaha dhegtii afku ha ismaqlaan adkaysi haddaad u dhalana feeftaa lagu dhaqmaa dhammays aadmigu ma aha dhowaan arag baynu nahay caqlaa la isdheeryahee khalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu ninba dhan u arkaa runbaa qowl lagu dhidbaa been baan weligeed lib dhalin nafsigu waa soo dhaxaa dhagxumo waa laga durkaa sharaftu waa dhowrsashada iimaankaa laga dhargaa dheriga keli quuto ruux waxaa ka dhadhama macaan dhiiloowo wadaagta toban dhulkaagaa lagu hodmaa qurbaa lagu dhalan rogmaa qaranna waa loo dhintaa dhiig baa calan loo shubaa abwaankii dhaqanbilee sidii dhaygeel murtida dhansiin jiray aadmigiiyo tix buu kaysana ku dhahay baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo riddada halkuu qeyrkaa wax dhigay waayuhu waa dhowrwejile mar buu dhool kuu curtaa dhijaamuhu biyo tufaan dhirtuna ubaxaysataa geeluna badi kuu dhalaadhay iyo xoor buuxsataa mar buu kula dhalan rogmaa cirkuna dhibic joojiyaa dhulkuna engegaa abaar dunidu waa dhabanahays dhib iyo waa khayr isxiga nin dhalan iyo waa mid dhiman ogow waayeelka dhacay mar buu dhalinyaro ahaa dhaqsuu ku socdaa wakhtigu waagii subax kuu dhashiyo libdhada gelin kuu dhacdaba wadkaad u dhowaanaysaa ifkaad ka dhammaanaysaa dhabtuna waa aakhirada waxaa jahannamo ku dhaca dhimbiisheeduna gubtaa ninkii dhabadeeda maraa jannana dhaya laguma galo dharaarta qiyaamahana waxaad dhito kaydsatiyo waxaad dhigataad heshaa dhankaa waxaan uga socdaa wax dhacay dhaafoo ka gudub wakhtigu yuu kaaga dhumin dharaaro daraata tegey u yeelo dhugsaa dambaa dhigtiyo tala kaa rabtee taariikhda dad baa ku dhigan dhintaa jira nagu dhex nool waxaad dhulka uga tagtaa xusuus iyo waa dhigaal dhashaadana waa u kayd adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la tabin ha kicin dhiiliyo colaad
dirkaagu hadduu isku dhaco suldaan dhexdhexaadsha noqo dhannaba yaan lagugu tirin u dhoolla caddee khalqiga dhawayso qofkii ku necab ha dhaawicin ruux ku jecel ha noqon ruux dhinac ka raran dhegtaadunayay mid noqon dhegaysata keli xumaan wax dheeldheelkaa ah buu dhabaystaa aadmiguiyo hadalkuyuu kaa dhecdhicin ha noqon dhagarqaba kalkaal dhoohane lagu meelmariyo dhaandhaan yaan lagugu xaman dantaada dhabcaal u noqo siduu dhirta ubax u bilo ayuu dharu yahay hidduhu dhaliil kuma laha qalbigu xumaha laga dhaamiyee waxaa dhalan roga khalqiga dhunshaha qayrkii dhunshiga dhanxiirka dhanxiir hodiyo dhallaanka la duufsadiyo ha noqon dhaqankiiska carar amase dhalanteed ku nool dhabtiyo kala garan riyada ha noqon dhaanraac la hago ha noqon ruux la ysku dhigo ha noqon dhagax uu qofgamo ku dhacaa meeshii la rabo dhartuur waabuu ladnaa dhimirku ruuxuu ka tegey kumuu dhalan waalidee sidaada marbuu dhammaa dherarka joogiyo xiskiyo dhaayaha maqalka iyo caqligu hadduu adig kuu dhan yahay barbaa dhagaloon wax maqal barbaa dhutiyoon wax arag barbaa dhudhummada ka jaban barbaa dhakowlaha cuskada laxaad ku dhantaalan yahe ka durug faandhaadashada dhardhaar saddexaa isxiga dhig iyo udubbaa iskaba labiyo dhadig baan ishurin samraa guul dheef u hela mar waa dhaqashiya xurmale dhalbaa aayiyo raje leh ammaanaa dhowris loo abaal baa dhigasho lehe dhedhemi ereyada dhedhemi dhambaalka xogtiisa qaba wixii dhaxala iga qoro wixii kale dhinacu tuur dhugasho damaclaan aflixin dhar aadan lahayn marnaba dhaxanta hugga kaa ceshiyo dhabtii noqon waa xarago dhankaa waxaan uga socdaa dhigiis hoos jooge iyo dhadhama raac liita iyo ha noqon dhididkiis macune amase ruux dhuuni hago qalbiga dheragsana ka noqon dhulkana quud ha isku dhigin noloshu way dheelidaa bad bay dhex jibaaxaysaa marbay dhan u liicaysaa marbay dhab u toosaysaa dharaartay kugu xun tahay weynaha sacabada u dhigo ilmada dhabannada ka tiro dhabarka murugada u rido dhexdana himilada u xidho fulow guul waadhowday rajaduyay kaa dhammaan nooluhu waa dheef wadaag dhoobaa laga wada unkamay dherarka buuraha malihid kumaad dhalan keli sagaal dhaqaaqa isqaad kaliyo dhulkoo lagu mara santaag dhaqanka isla weynida la dhabtii rabbi waa xarimay addoon baa tahay dhimane kibirka weynaha u dhaaf ma dhigin dhaban hooyo weli dhallaankeedoo qatane ha noqon dhadig quursadaha kuwii dhalay liiday iyo dhammays keligii ismood qof dhacay sida uu u jabay ayuu dhutiyaa karaan aqoontuna waa dhigaal maaha dhaxal la yska helo cilmiga ruuxii ku dheer inaad isku dherarisaa dhabtii kuma gaadhay sida dhulkaaga wanaag ku joog libaaxa u dhaartay iyo dhurwaaga libaaxa neceb dhuuniga isku meel ka galay ayay wada dhowrayaan colaadda dhexdooda taal dhabtii hadafkaa ka weyn danbaa dhexdhexaadisaa dhankaa waxaan uga socdaa tixdana ku dhammaynayaa dhul aad wada leedihiin nimaad dhagar kala qabtaan haddii uu cadow u dhaco wixii hore meel dhigoo garb baa wada dhiciya tidhi markaad dhega leedahay samuu kaa dhaadhacaan ujeedka dhambaalku sido nin dhiiglii hayga qoro mid dhoohana yeelkadii waa tahay daawadayaal intaasi ayaan toddobaadkan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii wax ka baro waayaha nolosha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed siciid cali maxamed turki dhinaca editinka iyo habaynta isku dubaridka iyo weliba farsamada iyo kamaradaasi quruxda badan waxaa inoo farsamaynayay suxufi sare farsamayaqaanka maxamed soomaali inta aynu barnaamijkan dhigiisa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaanuna idinku dhaafaynaa mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo muse ismaaciil qalinle islamarkaasina waxaa codkiisa macaan nagu soo gaadhsiinaya fanaanka faarax murtiile sida jabal barwaaqa webi dacalka kaga yaal oo ay duushii sare daruuruhu hadheen dayaxuna dhanka bari kahawga soo diray togiyo caleentuna ka tageen hareera sida damal barwaaqa webi dacalka kaga yaal oo ay duushii sare daruuruhu
dheere